ugu yaraan 22 ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa maanta lagu dilay dagaal ay kooxda al-shabaab ku qaaday saldhig ciidamadaasi ay ku sugnaayeen oo ku yaala degmada Runirgood oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe halkaasi oo ciidamadu ay shalay qabsadeen kooxda al-shabaab ayaa sheegatay in dagaalkaasi ay ku dileen ilaa 230 askari iyo sarkaal ciidamada ka tirsan balse Maxamuud Sani taliyaha qaybta 12aad ee ciidamada Soomaaliya ayaa isagu sheegay in 8 askari looga dilay dagaalka sarkaal ciidamada ka tirsanna uu dhaawacmay haatanna lala yahay taliyaha ayaa ciidamada AMISOM iyo abaanduulaha ciidamada Soomaaliya ku eedeeyay in ay mas'uul ka yihiin jabka soo gaadhay ciidamada dawladda isagoo sheegay inaanay jirin wada shaqayn labada dhinac ka dhaxaysa Cabdicasiis Xuseen Cismaan ayaa taliyahan khadka telefoon ku wareystay isagoo ugu horreyn weydiiyay halka uu ku sugan yahay iminka waxaan ku suganahay meel la yiraahdo Biicade waa caafimaad qabaa nabadeyda waaye gurmad ayaanan hawshi u dirnay adigu marka dagaalka ka dhacay Runirgood ma qaybaad ka ahayd maya aniga kuma jirin waan gartay maxaad macluumaad naga siin kartaa marka dagaalka ciidamada aan mas'uulka ka ahaayeen sidee wuxuu dhaceen marka wallahi sida rumaanta waxa waaye ciidanka way dadaaleen ayaga oo nala soconin qoladii oo maxaan ku yiraahdaa Burundi iyo Uganda AMISOM ay nala socon ayay dagaalka galeen wayna ku guuleysteen ilaa Runirgood ayay qabsadeen oo 180 kilomitir u jirta magaalada Muqdisho marka waxa waaye si gaad ma aha ayaa mataqaanaa loo galay saakeeto halka saac oo rugidoon markay waa gartay marka al-shabaab waxay sheeganayaan in ciidamo badan ay ku dileen meesha adigu macluumaadkaad helaysaa maxay yihiin wallahi macluumaadka aan helayo waxay yihiin in ay ciidamo badan aanan la dilin laakiin dagaal hadii la galo khasaarana waa ka yimaadaa faa'iidana waa ka timaadaa tir ahaan marka imisa ciidankaaga laga dilay wallahi tir ahaan intaas ma ku dhihi karo waa gartay laakiin al-shabaab waxay sheeganayaan in 230 ciidamadiina ah ay ku dileen dagaalka waxa waaye horta tirada intaas ay sheegayaan ma dhamo shabaab ay sheeganayaan laakiin waxa waaye ciidanka meesha ku dhintay tiradooda cadadka inta uu yahay maxaan ku yiraahdaa uma hay si toos ah hadda intaas lama dhihi karo laakiin de waa laakiin numberka ay sheegayaan ma jiro mid jiro maaha laakiin general marka aan arrinta shabaab dhinac uga soo tagno waa ciidankaagii adiga ay ka hoos yimaadaan waxaanad leedahay dagaal hadduu dhaco kolley meesha labada dhinacba khasaaraa gaadhay haddii ciidankaagii khasaarihii soo gaaray aanad ka warqabin miyaan la oran karin haye muxuu yahay markaa khasaaraha soo gaaray ciidanka khasaaraha soo gaara waa ka warqabaa marka waxaan kuu sheegaa khasaaraha soo gaaray madama numberkaasi waa ka yaryahaankooda ilaa 8 qofood camal ayaa meesha ku dhigan 8 baa ciidankaaga laga dilay ha waa gartay al-shabaabka imisa iyaga ka dhintay wallahi shabaab ayagana qaar waxaa ka dhimatay ilaa 12 camal saraakiil dawladda ka tirsan oo la hadlay waxay ii sheegeen in ciidankaagu markii ay tegayeen deegaankan Runirgood looga digay mar haddii aanay la socon ciidamo AMISOM oo aan dhulka ka dhaweyn inay meesha tagaan laakiin aad ka madax adeegteen oo aad kaligiin isbedeen inaad tagi kartaan meeshiina qabsan kartaan xejin kartaanna laakiin waxa muuqata in go'aankaasi aanu idin suuro gelin mar haddii ciidankii al-shabaab intay idin yimaadeen meeshiina idinka qabsadeen ciidanna idinka laayeen maxaa ka jira wararkaas waxa waaye horta marka ugu horeysa ciidanka tababar fiican ayuu lahaa ciidanka waa ku kalsoonayn annaga haddii maxaan ku yiraahdaa aan ku kalsoonayna uma diri lahaynin meesha ciidamada oo AMISOM waxa waaye kaalin ayay noo yihiin annaga waxaan nahay dadka deegaanka u dhashay oo yaqaano oo wax walbeeta ah marka sidii la ajligeeda waxaana si darrada dhacda waxay aheeday ballankii laysku wada ogaa AMISOM iyo annaga ayaa maxaan ku yiraahdaa ay ka soo daaheen waa tahay marka ballanka laga baxay muxuu yahay ma AMISOM iyo idinkaagu waxaad isku ogeydeen inaad idinku sii horumartaan iyaguna xagga dambe ay idinka difaacaan marka sidaasay ahayd marka khasaaraha idin soo gaaray mas'uuliyad qayb waxa kule AMISOM miyaad leedahay wallahi sida rumaanta kama maro maxaad isku ogeydeen AMISOM haddaad si rasmi igu sheegtid maxaad ballantaad dhigateen AMISOM maxay ahayd
maya ballanta waxay ahayd in laysla wada howlgalo oo aan meesha laysla wada qabto. laakiin dee wararka la ii sheegayo saraakiisha dawladdu ii sheegeen waxa weye waxaaba laydinka digay inaad tagtaan meesha keligiin oo malaha waxaa muuqata taas inaad ka madax adeegteen. taasi waxa waaye negligence timid bay ahaaday, laakiin waxay ahaaday in laysla wada duulo oo laysla wada socday ahayd. marka ciidanka way istijaabinayeen. marka istijaabintiini qayb baad idinkuna mas-uuliyad ku leedihiin in khasaarahan idin soo gaaro askar laydinka laayo. go-aankaas adigu ugu dambeyn kugu imanaya sooma mas-uuliyaddaada qaadaya? maya ma qaadaya aniga. yaa iska lahaa markaa go-aanka in ciidanka soomaalida keligood tagaan meesha? go-aanka madaxda naga sarreysa ayaa lahayd. guddoomiyaha gobolkaad ka wadaa mise taliyaha ciidamada? abaanduulaha ciidanka iyo ayaa amarkaas bixiyey. waa gartay. abaanduulaha ciidamadu markay bixinayaan amaro noocan oo kalea soo ma oga inay halis gelinayaan naftii askarta soomaalida? dee iyagaa la weydiin karaa. waa tahay waxaa la ii sheegay in baabuurna laydinka qabsaday oo ilaa 3 baabuur oo laleeyahay xitaa baabuur aad adigu leedahay ku jira, maxaa ka runa arrintaas? maya aniga baabuurkayga ma joogin, biyacadda meel la yidhaahdaan joogin oo intaas kilomitir u jirto mana shaqa kuma lahayn. aniga baabuurkaygana lama qabsan. waxaa jira nin sarkaala oo magacayga oo kaleeto leh oo maxaan ku idhaha sanay cabdulle la yidhaahdo, ninkaas ayaa gaariga iska lahaa. ninkaasi markaa sarkaalkaas shabaabku waxay sheeganayaan in saraakiisha meesha ama lagu dilay ama maqan inuu ku jiro. maxaad macluumaad ka haysaa adigu? wallahi macluumaadka aan ka hayo waxay tahay in sarkaalkaasa soo dhaawaca hudka ka soo socday ayaa noogu war dambaysa, waana lagu maqan yahay raadgurubkiisa. sarkaal dawladda ka tirsan wuxuu leeyahay ciidamada dawladda inta dhimatay maahe tiro kale oo ilaa 10 gaaraysa way maqan yihiin oo waxaaba laga cabsi qabaa in shabaab ay gacanta ku hayaan oo nolol ahaan ku qabteen. maxaad ka warhaysaa arrimahaas? maya arrimahaasi ma jiraan. maxaa casharo marka aad ka barteen jabkan maanta idin gaadhay? wallahi wax badanaa laga bartay. waxaa laga bartay in maxaan ku idhahdaa ciidanka masaafada uu jarayo in ay ahaato mid xadidan oo maxaan ku idhahdaa horena waa u ogeynay. marka masaafo dheer ayay mataqaanaa ay jareen. marka insha allahu tacaala waxay noqon doontaa duruus horeetana waa ku qaadana annaga oo waxaan haynay raggi wax usoo bartay habkaas iyo kulli. marka calaa kulli xaal waxba ma ahan, wax walbeetaba dersi baa laga qaataa. marka dersigaasi wuxuu noo yahay mid oo aan ka faa'iidaysan doono baryaha soo socda insha allah. hadda marka ciidankaagii meesha tegay waa la jabiyey, xaggey ku sugan yihiin intii meesha ku dhimatay mooyaan intii kale xaggey ku sugan yihiin waktigan? waxay ku sugan yihiin meel la yidhaahdo xaruur iyo xaaji cali iyo cadale. marka xaaladoodu maxay tahay? maxay noqonaysaa xaaladoodu? maxay ku dambaynaysaa? waa fiicantaa aad iyo aaday u fiicantaa. wax dhibaataa ma jiraan. moraalkoodana beriyo ayaa mataqaanaa la waaciyo gelina insha allahu tacaala, waana lagu guuleysan doonaa insha allahu tacaala. marka meesha ay ku sugan yihiin miyaad u diraysaan ciidamo markaasi gurmad ah oo iyagoo kasoo daadgureeya, mise waxaad damacsantihin inaad meeshii dib u qabsataan? insha allahu tacaala dib ayaan u qabsan doonaa insha allah. waa gartay. maxaad fariinoo amisom u gudbin lahayd? inkastoo la leeyahay waa laydinka degay inaad keligiin baxdaan, laakiin adigu aad leedahay amisom qayb bay ku leeyihiin dhibaatadiin soo gaadhay. maxaa fariinood gaarsiin lahayd amisom? waxaan gaarsiin lahayn inaan wada shaqayno oo aan meeshii gurmad iyo maxaan ku idhahdaa labadeynaba inaan isla wada joogno. wada shaqayn la-aanta markaa jirta maxaa u sababaad isleedahay adigu? maya waxba u sabab maahan, kolleeto suu tafaahum yar baa jiray, laakiin macaliis waa dhammaana insha allahu tacaala. kaasi wuxuu ahaa maxamed maxamuud sanay, taliyaha qaybta 12aad ee ciidamada Soomaaliya. wuxuu u waramayay wariyaha VOA Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo Washington ku sugan. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda degmada Runingood ee gobolka Shabeellada Dhexe waxa aan haatan ka wareysanayna oo khadka taleefanka ku jira wariyaha VOA-da ee gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane. Xuseen, haddaad maqlaysid maxay yihiin macluumaadkan ka hayno xaaladdu sida imika tahay degmadaasi maanta dagaalku ka dhacay? cabdicasiis waa mahadsan tahay. xaaladda Runingood oo saacadihii hore maanta ay dagaallo ka dhaceen oo u dhexeeya ciidamada Soomaaliya iyo kuwa al-shabaab, xaaladeeda caawa waxay tahay mid degan. sidoo kale ciidamo dowladda Soomaaliya ka tirsan oo ka tegay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa goobta aaday
waxaa lagu jiraa baadigoobka qaar kamid ah askartii goobta ku sugneed oo dagaalku ku qabsaday oo ku kala firdhoomay. marka xaaladeeda waa degan tahay. isgaarsiinta warar hore oo soo dhacay waxay sheegayeen inay hawada ka maqneed, laakiin isgaarsiintu weli hawada way ku jirtaa. wax kaloo hadda intaas dhaafsiisan ma lahan. xaaladana waxay tahay mid degan. waa tahay ciidamada soomaalida meesha lagu dilay qaarkood waxaa la leeyahay kooxda al-shabaab qoorta ayay ka gooyeen. marka macluumaad noocaasa adigu ma maqashay? ilaa iyo hadda ciidan dowladda soomaaliya kamid ah oo sidaa loola dhaqmay ilaa iyo hadda ma hayno. laakiin dadka qaar waxay sheegayaan in ay jirto oo sidaas oo kale loola dhaqmay, laakiin wararkaan helayno war sugan oo xaqiijinaya in falkaasoo dhacay ilaa iyo hadda ma jirto. laakiin fadkii hore dagaalku marka uu bilowday waxaa jirtay ciidamo intay rasaas u dhaceysay ku dhintay. qaarkood ay ciidanka soomaalida ay hore u qaadeen oo fariisimihii ay ku sugnaayeen oo gobolka shabeellaha dhexe qeybo kamid ah ay ula tageen, qaarna meesha looga tegay. laakiin ma hayno war sheegaya in ciidan kamid ah dowladda soomaaliya oo sidaa loola dhaqmay war xaqiijinaya ilaa hadda ma hayno. maleeshiyadan al-shabaab ee dagaalka ku galay degmadan ciidanka soomaalida ka dul dhacay, iyagu xaggee ka yimaadeen? wararkaan helayno waxay sheegayaan in ay ka kala yimaadeen gobolada deriska la ah gobolka shabeellaha dhexe, haba ugu badnaada gobolka galgaduud iyo qeybo kale oo ka yimid gobolka shabeellaha hoose. marka iyo ciidan kale oo hore u joogay gobolka shabeellaha dhexe. laakiin dhacdadaas ayaa waxay imaaneysaa un wax ka yar 24 saacadood markii ay ciidamada dowladda ay qabsadeen deegaanka ruunirgood. waa tahay ugu dambeyntii waxaa la sheegayaa in isgaarsiinta dhammaan deegaankaasi ay go-an tahay oo saraakiisha dowladda qaarkood waxay sheegeen inuu socdo howlgallo ay doonayaan in ciidamadaasi soomaalida ee aad sheegtay in la baadigoobay inay kusoo helaan. marka ma ka warqabtaa isgaarsiintan go-an? xiriiro dhowr ah oo aan la sameeyey. isgaarsiintu waxay tahay mid si caadi ah u shaqeynayso, laakiin waxaa soconaya deegaano kale oo kamid ah gobolka shabeellaha dhexe oo aanan sida uga fogeyn deegaanka ruunirgood, in isgaarsiintu ay tahay mid caadi ah. sidoo kalena uu soconayo baadigoobka lagu hayo ciidankii goobta ku sugnaa oo saaki uu dagaalku qabsaday, oo ciidamo ka yimid dhinaca muqdisho iyo kuwa gobolkaba ka tegay, in hawshaasi ay wadaan. isgaarsiintuna ay tahay deegaanka ruunirgood mid xilligan hawada ku jirto oo shaqeynaysa.